مدحلاتك حلبانada ama golaha shacabka waxa uu ku egyahay 14 Abriil oo maanta ah sideedaba sharcigu wuxuu dhigayaa xildhibaan waa inuu xildhibaankii bedeli lahaa yimaada madaxweyne waa inuu madaxweynihii bedeli lahaa yimaada wax dastuur faaruq haba yaraatee ma dhacdo mana dhici karto laakiin su'aasha waxay tahay xildhibaano badan ee mucaarad ahaa ee runtii lahaa waxaan sugaynaa May 15 waxaan sugaynaa ilaa madaxweynaha xilkiisu ka dhacayo waxaa su'aasha ay tahay xildhibaanadan kuwa mucaaradka baan ka soo qaado oo muddaxileedkooda uu ku egyahay 14 Abriil oo maanta ah maxay u dhihi waa annaga xilkeeni waa uu dhamaaday xilka waa isaga tageynaa dawladdan waxaan ka sugaynaa madaxweynaha waqtigiisa markuu dhamaado inuu meesha isaga baxo marka waxyaabo badan waxaa jira shacabka runtii lagu qaldo ama shacabka waxa runtii aysan waxba kala socon xildhibaanka wuxuu qaataa mushahar 5,000 iyo wax ka badan ah waliba gunooyin iyo wax marka la isku daro waa ilaa ay 7,000 ayuu qaataa bishii marka waxa su'aasha ay tahay xildhibaan haba yaraatee lacagtaas faraha badan leh isaga horeeli karo leh aniga xilkayga waa isaga tagay ama waa iska casilay miyaa jira waa maya xildhibaanka dantiisu fiirsanaya markii waxa guriga kale uu degan yahay intaasoo staff oo shaqaale uu leeyahay waxa dhan wuxuu u baahan yahay lacag uu ku qarash gareeyo marka 7,000 oo dollar lacag gaaraysa bilba ku soo galaysa ciidiisa haba yaraatee ma jirto marka waxa ay eeganayaan ama ay fiirsanayaan waa dantooda wax shacabka ay u danaynayaan ama cidda ay matalaan u danaynayaan haba yaraatee ma jiro xilligan oo kale waxay ahayd in wax waa xildhibaankii bedeli lahaa laga soo shaqeeyo oo runtii waxa 14 Abriil hadduu xilkooda dhamaado kii uu xilka ku wareejin lahaa uu diyaar u yahay may marka la gaarana 15keeda madaxweynihii waxa waa xilka kala wareegi lahaa inuu diyaarsan yahay marka runtii waxa halkaas ka cad in madaxweynaha dawladda ama madaxweynaha xildhibaanada uu sun ku ekeen Abriil 15keeda ama May 15keeda sidaas waxaan u leeyahay kaararka ay wataan ee aqoonsiga ah ee dariiqa ku maraan ama ay baarlamaanka ku galaan waxa ku qoran bisha December 13keeda inuu ka dhacayo 13 December inuu ka dhacayo mushaharkooda ay sii qaadanayaan oo runtii mushaharkoodii iyo balaankoodii waxba uusan iska bedelin marka maxay ku tusaysaa taas inay sii joogi doonaan ilaa iyo 13 December oo sanadkan 2026 hadda aan ku jirna ah marka waxa waaye sida dastuurka waxa runtii ku qoreed ee uu shaqaadan madoobe gudoomiyaha baarlamaanka uu inoo sheegay dastuurka wuxuu qorayaa madaxweynaha dawladda inuu yahay 5 sano annagana waxaan joogi doonaa 5 sano oo waxay ka bilaabanaysaa dawladda hadda jirta marka waxa su'aashay ka taagan tahay waa ay xildhibaanada mucaaradka ah u dhaliili waayeen taas waa ay ugu hor imaan waayeen oo ay u dhihi waayeen annaga madaxweynaheedkeena wuxuu ku egyahay Abriil 14keeda haddaan nahay xildhibaano madaxweynahan wuxuu ku egyahay madaxweynaheedkiisa May 15keeda marka ilaa hadda waxa waaye wax ka dooda taas ma aan aragno ka soo qaba Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Shariif Sheekh Axmed oo runtii ah labada qof ee xildhibaankana ah madaxweynenimada maanta musharax u ah ee tartanka ugu jira xisbiyana leh ilaa iyo hadda ma aanan arag iyaga oo runtii waxa way arrimahaas ka hadlaaya waxaan aragnaa in waxa way dawladda ha isbedesho dawladda dastuurkii dawladda dhaliilo aan loo joogin oo runtii waxa way horumar oo shidaal ama waxa way ka hor yimaadaan aan aragnay ama cunqabateyn ay ka hor yimaadaan aan aragnay ama maamul goboleedyadii waxa way waqooyi bare oo aysan u hambaleyeen ayaan aragnay waxaan aragnaa in ay runtii wax cagsi ah mar walba u hambaleyaan sida waxa waaye lafta gareen oo isku caana shubay sida Axmed Madoobe ee Jubbaland oo isku caana shubay inuu u hambaleyeen marka runtii waxa waaye waxaan la yaabanahay nimankan iyaga xildhibaanada ah rag badan oo fara badan oo xildhibaano ah ee mucaarad ah ayaa jira laakiin waxa waaye waxa su'aasha dadweynaha maanta ay runtii isweydiinayaan ah ama annagaba iyaga aan weydiinayna ah madaxweynaheedkiina wuu dhamaaday maxaad u soo bixi laadihiin oo aad u oran laadihiin xilkeena waa u dhamaaday waan isaga tageynaa madaxweynaha sugaynaa marka annaga intuu xilkiisa ka dhamaado ma sameyn karaan markii kaarkaas ay wataan wuxuu ku egyahay 13 waa sharciga ee magaalada ay ku maraan waa dhaqaalaha ay ka helaan golaha shacabka mushaharaadka ay qaataan oo 7,000 iyo wax kor u dhaafay ah waliba inta ay shaqeeyaan sanadkii waa 12 bilood waxa ay shaqeeyaan wax 6 bilood ka yar wax 6 bilood ka yar ayay shaqeeyaan markii baarlamaanka intuu waxa waaye session ku jiro ama waxa waaye runtii waxa waaye fasax ku jiro ayaa aad u fara badan inta ay doodaan waxa waaye waa wax yar oo kooban waxa taas ka sii daran nimanka waxa waa hadda ka soo qabo Shariif Sheekh Axmed oo xildhibaan ah iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xildhibaan ah madaxweynena u tartamayo waxa baarlamaanka 11aad ee hadda jira ay soo xaadiraan oo ay ka tirsan yihiin waa 3 jeer oo kaliya waa 3 days 3 fadhi kaliya ama 3 kulan kaliya ayay yimaadeen
baarlamaankaas oo shaqeynaya 4 sano ku dhawaad dadkii aana soo xaadirin 4tii sano ee 3 cisho kaliya ka soo xaadirin maxay marka waxa weeye ummadda ay u doodayaan ama ummadda ay matalaan ama sharciyada ay ka doodaan maxay tahay taas waxay cadeynaysaa inay xildhibaanimada ama xasaanada u haystaan danahooda kaararka iyo dhaqaalaha waxay u qaataan inay tahay danahooda marka dad badan inay isweydiiyaan waa maanta xilkiini waa uu dhamaaday waxaad u sii joogtaan maxay tahay waxa aad ku sii shaqeyn kartaan oo sharciyada maxay tahay haddii kale dastuurkii aad khilaafteen oo aad diideen ayaad runtii wax waa taageerteen maanta haddaadan wax waa runtii ka hor imaanin oo aadan dhin xilkiini waa uu dhamaaday haddaad sidaa kusii joogtaan dastuurkii 5 sano qoraya ee Sheekh Aadan Madoobe uu inoo sheegay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sax ah marka waxaa wanaagsan in aadan ummadda qaldin ummadda inaadan wax waa runtii carqaladeen ee aad intaad dibadda u soo baxdaan aad tirahdaan annaga deedanaheennii ayaan eeganaynaa oo runtii waxa waa ummad aan u shaqaynaa annaga ayaa isu shaqaynaa sida dad badan ay yiraahdaan oo xildhibaanka markii loogu tago arrimo yar oo dadka familkiisa ah ama arday yar oo waxa waa jaamacado u baahan ama wax uma taqaana xafiis shaqadeyn ugu baahan markuu u tago waxay badanaa yiraahdaan maada ay soo doortay lacagteeda ay soo dooratay anaa iskeenay marka waxyaabaha loo raadinayo qof iyo cod waxay tahay qof dadka shacabka u shaqeeya ee shacabka ay soo doorteen cidii adiga aad soo dooratay waa cid aad adiga ku kalsoon tahay oo kuu shaqeynaysa laakiin ninkii lacagtiisa ku soo baxay malaayiin dollar waxa waaye wada dhaqameed iyo waxa waa xildhibaan ku soo laaluushay ama waxa maamul goboleed ku soo laaluushay meesha hadduu yimaado de markaas adiga kuma shaqeynayo waxyaabaha dalka uu la horumarin la-yahana waa taas oo isla xisaabta la-aanta ah marka waxa ay ku diidan yihiin doorasho qof iyo codar waxa waa wadana gaara marka waxa waa gabagabadii waxaa leeyahay maanta xilkiina wuxuu ku ekaa 14 oo maanta ah xilkiina wuxuu ku egyahay maanta oo abriil 14keedii ah dibal saasiil hadda daacadtiin oo aad runtu u sheegaysaan xillibaano fara badan oo daahir min jiisu uu kamid yahay xildhibaan gabaadiid uu kamid rag badan oo mucaarad fara badan ah xildhibaan sanyar uu kamid yahay rag aan soo koobi karin Frimbi oo kale bal waxaan idin leeyahay maanta aan ka codsanaynaa bal inaad tiraahdaan xilkiina waa u dhamaada waan isaga dhaqaaqna meesha وهذه الدعوة يجرت أما أمد الله شقيناها هذيك الأمد أقل ديسانة ده أمد وحوى التكنولوجيا ده وحوى تاريخها عصرية يقرب كقرب يسيه هنا وحوى كوميونيكيشن كأ آيفون كاس أي وطن أما سامسونج كاس أي وطن أي وحوى ما تقنا إنفورميشن ده قصة دعاية أي واحد بكلا سعد عندك ما يكون حلا هي أمد يعني على الأقل